ma ka cabanaysaa cariiri nololeed? Ma la'dahay albaab aad kaga baxda cariirigaas? Ma doonaysaa guurkii ma kaa soo daahay? Ma tahay shaqo la'aan? Sidaad albaab walba u garaacaysa ma weyse shaqo? Deymo badan ma lagugu leeyahay? Oo ma weysay deynta wax kaa gudo? Awlaad ma raadinaysaa oo ubadkii ma kaa soo daahay? Caafimaad ma raadinaysaa oo ma xanuunsan tahay? Ama waalidka ama walaalaha ama awlaadi ma kaa xanuunsan tahay? Dhammaan mushkiladaas xalkooda waa inaad akhrisato weliba si niyad ah u laasimta degdegan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena soo dhawaada kusoo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo xiiso badan. alxamdulillaah ilaahu noo ziyaada nimcooyinkaana siisay intaan haysanina soo dhawaada axbaabi. mar walba xasuuso inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadiso. waxaan idin la wadaagi doonaa maanta qisas aad iyo aad u cajiib ah. qisaskan runtii waan filayaa walaalo badan noloshooda in ay bedeli doonaan. hadduu muuqaalkan kusoo gaaray like saar, share garee, waayo waxaa laga yaabaa qof dartaa arakada uu arkay muuqaalkan darteed inay noloshiisa isku bedesho. haddaa nagu cusub tahayna fadlan kusoo bir channelka, subscribe ma saaro si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena. soo dhawaada qisaskeennii ayaan gudagelaynaa. qisadan ugu horeyso waxaa inooga sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri waxa aad iyo aad iiga soo dahay uurkii. waxaana gabarhaas oo la qabo dhowr sano ayaa lii qaba ayay tiri. sanadii ugu horeeyay ee nolosheyda waxaan islahaa dhib ma lahan, weli aroos cusub ayaa tahay, guurkaagu waa bilow, guurkaagu waa cusub yahay. laakiin dadkii waxay bilaabeenba qaraabadii familki weliba ninka familkiisa sanad markii lii qabayba inay iska soo jaraan naagtan waa ma dhasho. hal sano markii lii qabay waxaa la bilaabay naagtan waa ma dhasho. ninkeygana wuxuu barashar iyo cadaadis u saaray ma isbitaal tagtid, ma meel tagtid, anigoo hal sano bas laga joogo guurkeyga. ugu dambeyn waxay tirisay tashwiish iyo war la iigu waday. anigana shaki baa i galay. sanadii xoogaa markaan joogay waxaan aaday isbitaal, baaritaano ayaan sameeyey ayay tiri. waxaa lii sheegay xoogo infection inuu jiro, daawooyin ayaan qaatay. muddo kadib nagu soo noqo haddii ayay dheheen. haddana waan ku noqday. almuhiim wax uura weli ma yaranin. waqtiga waa socday, daawooyin waan isku daldalay, dhowr isbitaal waan tagay. ugu dambeyn waxaa la gaaray 5 sano anigoo wax ubad ah dhalin. ninkeyga xitaa familkiisa qaar way gooyeen. waxay dhaheen naagtan ma dhashada ah maxaa u ag joogtaa, ama iska fur ama naag kala guurso. ninkeyga familkiisa kula taliyeen, laakiin arrinkaas way ku adkeed oo muu sameeyeen. saas ayaa qaar ka mid ah familkiisa xitaa isugu xumaadeen. waxay tiri aniga waxaan dareemi jiray murugo badan, walwal fara badan. sanadkii 5aad markii la galay ninkeyga waxaa idhi waa inaan dalka dibadiisa adnaa oo isbitaaladaas aan fiirinaa. wayga ogolaaday, qarashaad iyo waxbaan diyaarsan ayay tiri. ugu dambeyn waxaan u baxnay dalka dibadiisa. markii aan u baxnay waxaa dhacday in baaritaan wax walba liigu sameeyey. sidaas la mid wax yar ayay sheegeen oo cilad la xallin kara inay tahay. daawooyinka waan qaatay, welina wax isbedel ah oo aan dareemay ma jirin. waxay ti aad u niyad jabay. markaan waxaa i galay shaki ah, adiga hooyo ma noqon doontid miyaa, ilmo ma dhali doontid miyaa. yacni waxay ahayd marka keliya oo shakigaas i galay. intii hore oo idin rajo ayaan lahaa. laakiin dalka dibadiisa markaan tagay daawooyinka aan qaatay weli aan ur yeelanin. waxaa i galay shaki ah, talow adiga kuumaba qorna miyaa inaad awlaad dhasho, inaad hooyo noqoto. ugu dambeyn waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah anigoo gurigeyga jooga oo aad u murugaysan oo khadka iska fiirsanayo oo wehel ka dhiganayo oo leh stresski isaga baabi'iyay ayaa waxaan arkay muuqaal bedelay nolosheyda. haddaba muuqaalkaas wuxuu ahaa sheekh ka hadlayo faa'iidada ay leedahay dikriga laa xawla walaa quwwata illaa billaah. micnaheeda waa laa xawla walaa quwwata illaa billaah, xeelad iyo awood cid leh ma jirto alle subxaanahu wa tacaala mooye. marka waxaan arkay ayadoo sheekh ka hadlaya faa'iidada ay leedahay
qisas badan ayuu ka sheekeynaya dad badan oo ilaahay noloshoodii ku bedelay. waxay tiri rajadii iga tagtay ayaa ii soo noqotay, rajo ayaa i gashay. waxaan dareemay inaan aniga khaldanaa, waayo intaan dhakhtar iyo bini aadan daba ordayay haddana ilaahay subxaana watacaala dhinaciisa u ordi lahaa ilaahay ima dayaceen. sidaas ayaan dareemay ayay tiri. waxaan bilaabay inaan aqriyo laa xawla walaa quwata illaa billaah subaxdii 1,000 mar inaan dhaho laa xawla walaa quwata illaa billaah, anigoo u niyeysanaya in ilaahay subxaana watacaala hooyo uu siiyo, anigoo u niyeysanaya in ilaahay subxaana watacaala awlaad caafimaad qabta igu siiyo. sidoo kale habeenkii ama galabkiina waxaan akhrin jiray 1,000 mar laa xawla walaa quwata illaa billaah. si niyad ayaan u akhrinayay, anigoo xaqiiqsan, anigoo yaqiinsan in ilaahay uu awoodo in awlaad isiiyo uuna isiinayo. bointigaas ayaa muhiim ahaayay tir. waan yaqiinsanaa, waanba ogaayba in ilaahay awlaad isiinayo. waa ilaahay waxaan ogaa keedkiisa inuu buuxo, waa ilaahay waxaan ogaa wax walba inuu awoodo. addoonkiisa oo maskiin ah oo ilaahay si niyad ah u tala saartayna inuu alle subxaana watacaala dayacaynin ayaanba ogaa. sidaa ayaan u akhriyey aad iyo aad u akhriyey laa xawla walaa quwata illaa billaah. maalintii 2,000 oo mar ayaan akhrin jiray. 2,000 waxay ahaayeen 2,000 oo si niyad ah iyo yaqiin ah loo akhriyey. waxay tiri 5 bilood markii lagaga joogay waqtigii aan bilaabay akhrinta xawqalada ama laa xawla walaa quwata illaa billaah, ilaahay subxaana watacaala wuxuu i siiyey uur, weliba mataana ayaan dhalay. awlaad caafimaad qabta oo mataana ah ayaan dhalay. alxamdulillaah. qisadeeda waxaan usoo gudbiyey si walaalo badan ay uga faa'iidaystaan. qisadeena labaad ee maanta waxay nooga sheekeynaysaa gabadhaani waxay tiri waxaa iga soo daahay guurkii ayaa iga soo daahay ayay tiri. dadka idil waxay leeyihiin ma guursatid. sidoo bini aadamka qofka dawlad ka soo daahdo waxaa la leeyahay uma dhalin. qofkii guurka ka soo daaha ma guursatid. yani qof walba dhibaatada meesha ka haysato ay dadka jecel yihiin. waxay tan culeyska ay haysto waxa ka darna culeyska dadka ay maanta dhan leeyihiin ma guursatid. hiblaayadii kula ekeed, tii ka yareed, tii dariska ahayd, tii qaraawada ahayd, maxaa waxaas iga galayay tiri. dadkii ayaa i daba dhigtay oo maanta dhan xitaa haddaan sabri lahaa maanta dhan culeysada i saaraayo. waxay tiri aadayaan u murugooday. niman badan waa ay soo doonteen laakiin waxay noqdeen wax markay ay soo doontaan kadib iska tago xun. yacni wax igu naasib oo igu wanaagsanba maanan arkin ayay tiri. anigana waxaan diiday nolosheeda inaan qarka tuuro oo waa la guursadaa darteed iska guurso qof aan ii qalmin iyo meelaan ii qalmin inaan istaago. waxay tiri waxaan bilaabay inaan ilaahay baryo, inaan ilaahay isku xiro. waxaan aad u akhriyay tiri dikrigan xawqalada ama laa xawla walaa quwata illaa billaah oo macnaheedu yahay xeelad iyo xoog cid leh ma jirto alla subxaanahu watacaala mooye. waan ku celceli ayay tiri oo si aad ayaan u akhriyay anigoo u niyeysanaya in ilaahay subxaanahu watacaala guur igu siiyo. aad ayaan u akhrin jiray ayay tiri maalintii ilaa 2,000 oo mar ayaan gaarsiin jiray anigoo u niyeysan jiray in ilaahay subxaana watacaala guur igu siiyo. ugu dambeyn 2 bilood oo kaliya markii aan akhrinayay ilaahay subxaana watacaala wuxuu i siiyey guur wanaagsan oon ku degay oon ku xasilay. dikrigan waa mucjiso, riyo walba ayuu ku xaqiijinayaa. walaalahaaga u gudbi si ay uga faa'iidaystaan. waxaa laga yaabaa qof u noloshiisa inuu bedelo. qisooyinka iyo dhacdooyinka waxa loo sheegaa waxay tahay dadka inay ku tusaale qaataan oo ay ku cibro qaataan oo wixii faa'iido leh ay ka qaataan. waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel. qisaskeena ku saabsan maanta xawqalada halka ayay nooga ogyihiin. haddaa meesha soo gaartay muuqaalka like saar, haddaa hore noola joogto mahadsan tahay. wassalaamu calaykum.